Sodhawaad saaxiibayaal. Dabcan tan iyo markii uu soo idlaaday waqtigii loogu talagalay in dukaamadu isku diiwaangeliyaan ayaa waxaa bilowday howlgallo waaweyn oo gebi ahaanba gobollada dalka Koonfur Afrika ka mid ah. Gobollada Western Cape iyo Gauteng ayaa noqday gobollada aadka howluhu ay uga socdaan. Dabcan dukaamada ayaa aad loo baarayaa, isla markaana waxaa la weydiinayaa sharciyada isku diiwaangeliyaan. Walow wasiir ka mid ah wasiirada Koonfur Afrika uu sheegay dukaamada isdiiwaangeliyay balse weli aanan warqadda helin inaan la ciqaabi doonin, ciqaab adag inaysan mari doonin, balse qasab ay tahay inay helaan, isla markaana ay hayaan wax la yiraahdo reference ama tixraac ugu yaraan. Arrintan ayaa waxaad moodaa maalmihii ugu dambeeyay in habeen iyo maalinba ay howlgallada aad u socdaan. Weliba waxyaabaha hadda aadka loo bartilmaameedsanayo waa dukaamadii waaweynaa oo weliba dadka localka iyo dadka muwaadiniinta ama dadka ganacsatada waaweyn ay lahaayeen, oo ajaanibta waxaa la leeyahay weli si laguma yaacin. Waxaa la arkayay booliska Koonfur Afrika iyo weliba waaxaha caafimaadka dalka u xirayo dukaamo waaweyn oo Pick n Pay iyo Shoprite iyo USAF iyo waxyaabahaas ay ka mid yihiin, Spar iyo ka mid yihiin u xirayo oo gobolladan Western Cape iyo Gauteng u badnaa. Weli qayladu aad uguma badna Eastern Cape iyo kuwa KwaZulu-Natal, balse waxaa la filayaa maalmaha soo socda iyaduna inay aad u sii badnaato. Sidoo kale waxaa jira dukaamo aad u badan oo la diiwaangeliyay, isla markaana iyaguna dib loo xiray kadib markii la ogaaday inay qaab musuqmaasuq ah u samaysteen diiwaangelinta iyo weliba inay u adeegsadeen qaabab hoose, kuwaasoo qaarkood xitaa dadkii ka shaqeynaya la xiray. Waxaa barbar socdo oo aad xaaladda u sii xumeynayo in ay socdaan ciidamo dadka sharciga weydiinayaba intaanan dukaanka la gaarinba. Askar ayaa iska soo istaagaysa asaalamka Kenya lagu leeyahay ma hayo soo bax, dukaanka furana laga tagaa, isla markaana waxaa lasoo warinayaa dukaamo badan oo dadka South African ka tartiib fursad ay u heleen oo iska qaateen wixii yaalay, taasoo ayaduna aad u dhib badan. Sidoo kale dabcan waxaa aad loo bartilmaameedsaday goobaha maqaaxiyaha iyo goobaha cunooyinka lagu iibiyo oo dadka ajaanibtana ay aad uga shaqeystaan. Dadka waratada ee konteenarada wax ku gata iyaga sidoo kale waa la bartilmaameedsanaya, walow dadkaasi cunno aysan gadanayn un shamiito iyo nuurad iyo rinji ay gadaan oo keliya. Ayaguna waxaa lagu bartilmaameedsanaya waa un isma diiwaangelinaya, walow dowladda markii hore aysan ka hadlinba. Dukaamada aadka loo bartilmaameedsanaya waa kuwa ku yaalla xaafadaha isku raranka ah, xaafadaha locationada loo yaqaano, oo aad moodo kuwii markii horeba waxyaabahan pandemic ay ka dilaaceen oo Soweto iyo locationada Gauteng iyo weliba Western Cape ku yaallo. Gobolka Western Cape waxaa lasoo warinayaa inay howlgallo aad u waaweyn ka socdaan oo dukaamada qaar la xiray, qaarna lagu qasbay inay waxyaabaha qaar joojiyaan. Soomaalidu ay ka ganacsato oo caafimaad ahaanba aan wanaagsaneyn, markii horeba ayba qalad ahaydba in lagu gado dukaamada, balse dadku irsaaqadii u geysay oo dadaal un iyo wax un ku hela ay ka ahayd. Arrimahan ayaa soo badbadanaya maalmihii u dambeeyay, walow 3 maalin oo u dambeysay aad u socotay aad ay u silxaadsanayaan, walow dadka sharci darrada maalmoba la iska qabanayo iyadoo hadda